بين ساعة جغف الشام برنامج كيدي والو بغيت وبلو بغيت هليلة صبح runtii xiriirka jacayl ay xumaaday xal waa loo helaa xakiimka loo daayaa xisaabtiisa xawaasha la xijiyaa adna waxaa la iska dhigaa qof aan wax gaarin assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta maanta waxaan idin wadaa qiso yar oo aan ugu magac daray xiriirka jacayl xumaaday sidee loo xalinaa runtii xiriirka jacayl ay xumaaday xal waa loo helaa xakiimka loo daayaa xisaabtiisa xawaasha la xijiyaa adna waxaa la iska dhigaa qof aan wax gaarin nafteeda ku kalsoon mar haddii aad naftaada ku kalsoon tahay wax dhibaato ah lama kulmaysid ilaahay ayaaba ka xijaabayaba ilaan xakiimka xagiisa xigsatay haddii aad tahay qof daacad ah daacadnimadaada runtii waxaa jiro dadka faa'iideysanaya ama qof aad xiriir la leedahay ha noqdo ama qof aad saaxiib caadi tihiin ha noqdo bini aadamka mar walba markii aad aaminto wax walbo ka fila in aad kala kulmayso wanaagaada ixtiraamkaaga sharaftaada xataa meel ayay ugu dhacayaan maxaa yeelay waxaad tahay qof daacad ah runtii ma arkaysid sidaa daacad u tahay qof daacad kuu ah waxaad arkaysaa qof kuu isticmaalo sida shaarka uu xiranaya ama weel oo markuu rabo yacni cunto ku cunayo markuu rabana iska dhigayo waxaa jira qof aad wanaajisid aad wanaag kala kulmaynin waxaa jiro qof wanaagaada dhan u muuqanin raadinayo xumaantaada oo keliya gabar walba nin way jeclaataa jacayl ceeb ma ahan jacayl waa dareen jacayl waa naxariis jacayl waa aas-aaska nolosha laakiin runtii soomaalida qaar micnaha jacayl maba ay yaqaanin jacaylka waxay u arkaan ciyaar yacni kaftaan waxaan jirin asxaabta ku xiran kanaalkayga beela saajin official soo dhawaada inta ku cusub kanaalkayga idinkana soo dhawaada subscribe-ka saara gambaleelka furta like-ka share-ka commentiga dhiirigelinta intaba ha iga ilaabina الحب أساس الحياة marka jacaylka waa aas-aaska nolosha waxaan dhihi lahay gabar walba ka digtoono waxaa macquul ah qofka aad si dhab ah u jeclaatay aad yacni noloshaada dhan u hubaysay aad haminaysid kalsoonida aad u qabtid indhahaada xaqiiqda xataa ka daboolayaan laakiin u dambeyntii aad ogaanaysid xaqiiqda qofkaas oo noqon karo inuuba kuba ciyaarayo wax run ah uu kuu sheegaynin inuu asigoo ku qiyaameynayo uu kugu tilmaamayo adiga inaad tahay qiyaamoole qof qiyaamayo qof been u sheegayo yacni qof lugoynayo laanahu qofkaas mar walba hadalka aad dhahdid haddii uu ku dhahayo beenaad ii sheegaysaa waad i khiyaanaysaa waa hubaal akiid 100% inuu asiga yahay ruux been badan ruux qiyaamo badan ruux ka faa'iideysto daacadnimada gabdhaha qalbiga gabdhaha iyo dareenkoodana ku ciyaaro gabar walba sida adiga uu kula dhaqmaayo marka waxaa loo baahan yahay qofka aad xiriir la yeelanayso gabaray in aad ogaato xaqiiqdiisa mar walba mid kale waxaa jiro dad asiga u dhow adiga wax kaaga sheego waxaa loo baahan yahay dadka waxay kuu sheegaan 100% been ma noqon karo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa qofkaas inay og yihiin xaqiiqdiisa ee kaaga sheekeynayaan waxa uu yahay dhabta ah adigana aad asiga oo kaliya aaminaysid marka waxaa loo baahan yahay wixii lagaaga sheego in aad qaadatid yacni qaarkooda ma wada qaadan kartid laanahu ma wada xumaan karo waxa lagaaga sheego oo dhan run ma noqon karo laakiin wax ayaa run ka ah marka waxaa loo baahan yahay gabar walba way calaan cale gabar walba way oynay waxaan jiro qof aan u qalmin ilantaada inay u qabato laakiin waa inaa ogaatid qofka aad u ilmeynayso ma u qalmaa mise uma qalmo social media gabar walba calaacalkeeda ayaa ka baxaya gabar walba haddii aan la dardaarmo gabaray qofkii mar ku xumeeyo 10 mar oo kale inuu ku xumeeyo been kuu sheego waxba lama ahan wuu ka tagaa wuu ku soo laabanaya waa qaldamay raali ahow raali gelintu waxa loo baahan yahay inay xad lahaato